بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استوى جوجتان با الله أود لدمانتن وحنا كودا برينا إنه نجبت باديو عذرك كورونا فيروس كفارسي سكال الدوان ملك استوى دنيا أنك جوجنا با ما لنا مثل أداء لبي يتبنك بشا جنة وري لبضة كوني يقابي لباتنكا cudurka coronavirus ayaa sii siyaadiyay gaar ahaan nooca cusub ee ka bilowday xagga UK iyo ku faafay meelo badan oo dunida ka mid ah iyadoo weliba UK loo arkayo inay tahay meelaha ugu daran marka la fiiriyo faafitaanka da'da weyn da'da dhexe iyo weliba da'da hoose intaba haddaynu haddaba UK guud ahaanba ku bilowno xaalkooda ma aanu wanaagsaneyn intaasina qayladhaan ayaa kasoo yeeraysay maamulayaasha caafimaadka iyo kuwa UK kuwaasi oo dadka u sheegaya mar walbaba in aad loo taxadaro la ilaaliyo oo la kala fogaado iyadoo dhinaca kalena la waday dadaaladii tallaalada la bilaabay iyadoo dalkan laga ogolaaday 3 tallaal oo kala duwan oo ugu horeysay Pfizer iyo weliba BioNTech tallaalkeeda oo uu ku xigay tallaalka AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford aqritaankiina toddobaadkan maalmihii ugu horeeyay la ogolaaday Moderna oo iyaduna ah shirkadda dhinaca tallaalka ee waddanka Mareykanka UK waxa ay noqotay waddanka koowaad ee tallaalka bilaabay cudurka coronavirus-ka kaasi oo maamulayaasha caafimaadka iyo weliba ra'iisul wasaarahooda iyo weliba xogayaha caafimaadka UK dhammaantoodba ay ka wada dhawaajiyeen ilaa iyo haatan in la tallaalay dad aad u fara badan oo la doonayo in tallaalku uu sii bato waxa ay sheegeen dooska koowaad inay qaateen dad aan ka yarayn 2 milyan iyo 300 oo kun oo ruux iyadoo guud ahaan dadka la talaal ilaa iminka ay dhan yihiin 2 milyan iyo 600 oo kun oo ruux taasoo ka dhigan 300 oo kun oo ruux inay yihiin dad wada qaatay dooskii koowaad iyo dooska labaad laakiin dadaal xoog la wado maamulayaasha caafimaadkuna ay arrinkaasi ka dhawaajiyeen UK ra'iisul wasaarahooda Boris Johnson waxa uu shaaca ka qaaday inay filayaan marka la gaaro bisha February dhamaadkeeda ilaa iyo 15 milyan oo reer UK in tallaalku guud ahaanba uu gaari doono qaybihiisa kala duwan ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo xogayihiisa caafimaadka Matt Hancock labaduba waxay ka dhawaajiyeen in la sameeyo xarumo kala duwan oo gaaraya ilaa iyo 206 isbitaal ilaa 50 xarumood iyo weliba 7 meelood oo aad u waaweyn oo loogu talagalay dadka si aad in loogu buux dhaafiyo oo markaasi la tallaalo UK maamulayaasheeda caafimaadku digniin xoog leh ayay soo saarayaan waxaana ka mid ah professorka la taliyaha dhinaca caafimaadka England ee lagu magacaabo Chris Whitty oo sheegay toddobaadyada socda inaanu xaalku qumaneyn oo aanu wanaagsanayn oo ay tahay in la feejignaado oo la is-ilaaliyo arrinkaas waxaa kaloo iyaguna ka dhawaajiyay ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo Matt Hancock xogayihiisa dhinaca caafimaadka aanay sheegeen dadaalku inuu ku xiran yahay qof kasta oo reer UK sidoo xil isaga saaray inuu raaco awaamirta iyo nidaamka markaas la soo dejiyay ay sheegeen haddii uu yaraado cudurka soo ridashadiisu in dadka ku dhimanayaana ay yaraanayaan laakiin laga doonayo dadka reer UK dadaal xoog leh inay sameeyaan maray tallaalada ka hadleen waxa ay sheegeen in lagu bilaabay da'da 7-aadka iyo ka weyn kadibna loo soo degay shaqaalaha caafimaadka taasoo la doonayo bay yiraahdeen qof walba oo loo arko culays gaar ah inuu jiro iyo xanuuno gaar ah in tallaalka qaybta hore ay ka qaadan doonaan waxaa la tababaray dad loogu talagalay dadka inay tallaalaan iyadoo weliba ciidamada waddanka UK-na loo sheegay inay ka qayb qaataan daabulinta iyo keenista guud ahaanba tallaalka qaybihiisa kala duwan ee loo qaybinayo xarumaha kala duwan ee tallaalka loogu talagalay waxay sheegeen qof walba inuu sugo tallaalkiisa iyadoo dadka loo dirayo warqado la doonayo in loogu sheego xilliga iyo meesha ay tahay cabasho ayaa jirta ka imanaysa dadka waayeelka qaarkood oo sheegay inay dhici karto meelaha qaar loogu soo dirayo ballanta tallaalku inay u jiri karto ilaa iyo 30 ilaa 45 daqiiqo meel loo soconayo taasoo ay sheegeen inay ka qumanaan lahayd in la helo meel uga dhow laakiin dawladdu arrintaas ay si aad u dadaalayso waxa kale oo digniin la siiyay guud ahaanba dadka reer UK inay islaaliyaan maadaama barnaamij NHS-ta aanu jirin oo ah in dadka guryaha dad loogu dirayo oo la leeyahay la tallaalo arrintaas ayaa waxa ka faa'iideystay sida warbaahinta laga arkay kuwa iyagu dambiilayaal waa sida hadalka loo dhigay oo haweeney 92 jir gurigeeda ugu tagay kadibna yiri tallaalka coronavirus-ka ayaa lagu tallaalayaa kadibna ka qaatay lacag gaaraysa 160 pound oo ay ku yiraahdeen tallaalka ayaa intaasi jooga booliiska iyo qoliyaha caafimaadku waxay dadka reer UK uga digayaan inay iska ilaaliyaan kuwa dambiilayaasha ee dadka dulma iyo inaanay siinin xogtooda iyo faahfaahintooda bangiyadooda dadkaasi oo ay iska ilaaliyaan marka daba la fiiriyo UK maalmihii ugu dambeeyay marka la fiiriyo xagga dhimashada tiradu way soo yaraanaysay walow la arkay mar inay cirka u kacday maalintii jimcihii ee la soo dhaafay UK guud ahaanba waxaa dhintay 1325 ruux maalintii sabtidii ay ku xigtay tirada hoos ay u dhacday 1065 maalintii ku sii xigtay ee axadii tiradu hoos ay u sii dhacday 563 maalintii isniintii ee shalana tiradu way ka sii yareed 499 ruux
marka daba la fiiriyo faraqa u dhaxeeya sabtidii iyo weliba maalinta ee jimcihii waxay ahayd 260 inay hoos u dhacday tirada axadii marka la fiiriyo iyo tirada sabtidii waxay hoos u dhacday oo axadii ay hoos u dhacday ilaa 502 ruux taasoo lagu tilmaami karo kala bar sabtidii iyo axadii inay hoos u dhacday shalay 499 marka la barbar dhigo maalintii axadii 64 ruux ayay ka hooseysaa tiradu tii axadii oo isniintii ayaa yarayd waxay u arkayaan qolyaha caafimaadka iyo maamulayaasha UK haddii dadka cudurku soo ridinaya ay yaraadaan tirada dhimanaysaana inay markaas yaraan doonto ballan ayay sheegeen in looga baahan yahay dadka reer UK dhammaantood inay dadaal muujiyaan oo ay raacaan nidaamka iyo awaamiirta taasoo ay u arkaan tallaabada keliya ee guusha lagu gaari karaa inay tahay marka daba la fiiriyo boqoradda Ingiriiska iyo Prince Philip ayaa labaduba talaalka qaatay maalintii Sabtidii la soo dhaafay taasoo loo arko tusaale inay u tahay bulshada reer UK inteeda kale mar haddii boqoradda iyo weliba Prince Philip labaduba ay talaalka qaateen iyadoo boqoraddu 94 sano ay jirto Prince Philipna uu jiro 99 sano laakiin wararku waxay sheegeen inaan la cayimin talaalka ay qaateen shirkadda uu yahay AstraZeneca iyo Oxford kooda inuu yahay Pfizer iyo BioNTech inuu yahay iyo Moderna lama kala sheegin laakiin inay talaalka qaateen un baa la arkayay marka la fiiriyo qoyska reer boqor ee wiilka ugu weyn boqoradda caruurta ay dhashay oo ah Prince Charles ayaa isaga bishii Abriil ee sanadkii tagay 2020ka cudurka coronavirus uu ku dhacay waana uu ka caafimaaday warar kale oo mar dambe ayaa waxay sheegeen in wiilkii ayeeyada ama abootada ama macooyda ay boqoradda u tahay oo ah Prince William in isagana cudurka laga arkay walow faahfaahin dheeraad ah aanay bixinin qaybta markaasi boqortooyada dhinaca warbaahinta ugu qaabilsan wararka kale ee UK ayaa waxaa ka mid ah in dhaleeceyn loo soo jeediyay ra'iisul wasaare Boris Johnson markii la arkay inuu baaskiil ka soo qaatay Downing Street oo ah halka xafiiskiisu uu ku yaalo oo ku yimid ilaa iyo halka lagu magacaabo Olympic Park ee bariga magaalada London jiridada lagu magacaabo Evening Standard ayaa waxa ay soo gudbisay arrinkan oo la sheegay ilaa iyo 7 mayl inuu baaskiil ku socday taasoo loo arkayo inay tahay arrin ka soo horjeeda waa sida hadalka u dhigeen nidaamka iyo qawaaniinta xayiraadda oo ay sheegeen 7 mayl inay badan tahay in la socdo oo ay ahayd ka yar in la socdo laakiin qoliyaha uu hadlayay xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxa ay sheegeen arrintaasi wax qalad ah inaanay jirin waxna aanay ku jabnayn inuu soo qaato baaskiilkiisa oo ilaa halka uu ku gaaro gabar ka mid ah dadka arkay ayaa waxa ay tiri waxaan aad uga xumahay in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ay mar walba dadka u sheegaan guryaha in la joogo aan la fogaanin isaguna uu soo fogaaday baaskiil isagoo saaran oo qof la sheekaysanayay xagga dambana ay ka socdeen baaskiilo kale oo loo arkayay qolyaha dhinaca ammaanka ama amniga waxay tiri mar haddiina la yiri guryaha ku xasila ayaa la rabaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda laftooda inay guryaha ku xasilaan xogayaha caafimaadka ee UK Matt Hancock oo la weydiiyay mar su'aal ah in ra'iisul wasaaruhu ilaa xadkaas uu tago ama masaafadaasi waxa uu yiri mar haddii uu baaskiil ku soconayo jimicsina uu sameeyo waxba kuma jabna inuu heerkaasi ilaa masaafadaas uu markaasi gaaro marka daba la fiiriyo guud ahaanba UK xaalkeedu ma qumana laakiin waxay maamulayaasha caafimaadku u arkaan haddii dadaal xoog la sameeyo aadna la isu garabsado inay noqon karto arrimuhu inay aad iyo aad u wanaagsanaadaan talaalkiina uu dhinac socdo taasoo loo arko guul inay tahay la gaari karayo laakiin iminka toddobaadyada soo socda laga dayrinayo iyadoo weliba lagu jiro xilli ba'an oo qabowgu uu aad xad-dhaaf u yahay ugu dambaystii waddanka Uruguay oo kamid ah wadamada ku yaala Latin America ayaa waxa laga arkayay tiradii ugu dambeysay oo ah ilaa iyo 1215 ruux dalkaas oo kamid ah dalalka cudurku saameynta xoog leh oo ku yeelan marka la fiiriyo mowjadii koobaad ayay iminka u arkaan arrintu inaanay wanaagsaneyn iyadoo la sheegay ilaa 7,000 oo ruux in cudurku si ba'an ugu dhacay waqtiyadii ugu dambeeyay gaar ahaan magaalo madaxda Montevideo oo la sheegay ilaa 4,000 oo kamid ah dadkaasi inay ku nool yihiin waddankaasi si ba'an ayaa saameyn ugu yeeshay wadamada dariska la ah sida Argentina iyo Brazil laakiin Uruguay arrinkaasi xaalkeedu waa uu ka duwanaa aad bayna u dadaaleen maamulayaashu iyadoo weliba madaxweynaha waddankaasi Uruguay oo lagu magacaabo Luis Pau uu ka mid yahay dadka sida aadka ugu dadaalay in dalka laga xakameeyo arrimahaas iyadoo weliba hadda la sii dheereeyay kala fogaanshaha iyo xanibaadda dadka reer Uruguay tan iyo inta laga gaarayo 3 bishan January 2021 marka daba la fiiriyo guud ahaanba dalka Uruguay maalintii cudurku uu bilowday ilaa maalinka maanta 26,000 oo ruux ayaa laga arkay in 256 ruux oo kaliya cudurku Uruguay waa uu ka dilay
marka daba la fiiriyo guud ahaanba adduunyada saameynta xoogga leh cudurku uu ku leeyahay waa mid jirta waxaana lagama maarmaan ah sida ay qolyaha caafimaadka dunidu ka dhawaajinayaan in la is ilaaliyo iyadoo wadamo badan xilligii qaboobuhu uu jiro xaalkuna aanu qumanayn sida reer Yurub iyo weliba Latin America oo iyaga laftooda laga arkayo xaalad ba'an marka la fiiriyo wadamada qaar tiro fara badan ayuu cudurku saameyn ku yeeshay guud ahaanba dunida laakiin wadanka ugu darani waa wadanka Mareykanka oo dadka uu ku dhacay madaxa ay la sii galeen ilaa iyo 3 milyan oo ruux taasoo loo arkayo inay tahay tiro aad u badan dhimashadana warkeed badaa waxaa daba la eegayaa tallaaladii oo bilowday meelo badan oo dunida ka mid ah cudurka oo faafidiisa iyo fayrasyada cusub ay sii socdaan iyo xaalku sida uu noqdo fariintan iyada ee maalinlaha ahaa jirtay ee cudurka coronaviruska waxay isu bedeshay toddobaadkii 2 maalmood maanta oo kale oo talaada iyo maalin walba oo jimco ah haddii Allah awood leh uu ogolaado marka daba aynu fiirino fariinta waxaa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leighton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo weliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii hadii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528277 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle hay soo dhawaan yaana ku soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah